baraha bulshada ay ku kulanto gaar ahaan kuwa carabta ayaa waxaa maanta oo khamiisa si aad ah loogu hadalhayaa dhacdo argagax leh oo ka dhacday dalka Masar gaar ahaan magaalada Ismaaciiliya kadib markii wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalkaasi uu hooyadiisa oo waayela uu ka eriyay gurigiisa isagoo ku amray in guriga ay uga baxdo qaab guurguurasho ah. muuqaalkan fiidiyoga ee baraha bulshada lagu baahiyay ayaa laga arki karaa hooyadan oo fadhisa jaranjarada guri dabaqa taasi oo aad u ilameynaysa isla markaasna si tartiiba uga soo gurguuranaysa jaranjarada guriga maadaama ay tahay qof waayeel oo aan awoodin socodka iska badaaya inay gurguurasho uga soo baxdo gurigan. muuqaalkan fiidiyoga ayaa sidoo kale laga maqlayaa codka wiilkeeda iyo xaaskiisa oo si jees ula hadlaya hooyadan iyagoona ku amraya in jaranjarada ay uga degto si degdeg ah. طلع على ايه يا اختي هتعملي ايه لامان يلا تقعد معاها كده تقعد معاها فين يا ريتك شديده وحلوه هتقعد معاها تونسيها. wuxuu yiri markaad jaranjarada si nabada uga degto waan iska tirtiraynaa wixii wasaq ah ee aad nagu reebtay. subxaanallah. wiilkan caasiga u dhashay dalka Masar ayaa sidoo kale isagoo qoslaya ku yiri hooyadiis دي ام عاقه ديت ام عاقه مش الولد يبقى هو العاق لا والديه هي الام العاقه دي تقرفنا. waxa uu yiri waxa tahay hooyo naafa sidan ayay jaranjarada uga degaan hooyooyinka naafada isagoona u sii raaciyay jalbaabkaada wasaqda leh nooga tirtir dhulka banaankana nooga bax. hooyadan oo aan magaceeda la sheegin ayaa markii gurguurasho uga soo baxday dabaqaasi waxaa la kulmay dhalinyaro reer Masar oo aad uga naxay sida uu wiilkeedu la dhaqmay waxayna ku soo qaadeen gaarigan. hooyadan ayaana la ilmeysay sida uu la dhaqmay wiilkeeda. مركز طلعوه يا جماعة زي ما عملتوا كده مشكلة طلعوه. الفيديو ده من امتى؟ من سنة. فيديو من سنة. كان مزعلك فيه ولا كان بيهز ولا كان بيعمل؟ haddaba muuqaalkan ayaa markii baraha bulshada lagu faafiyay waxa uu dhaliyay cara aad u badan waxaana dad badan oo ka falceliyay ninkan ay ku tilmaameen inuu yahay ninka ugu doqonsan caalamka oo damiir laawo ah iyadoona laamaha amniga dalka Masar lagu amray inay gacanta ku soo dhigaan wiilkan caasiga iyo xaaskiisa ee falkan fooshaxun kula kacay hooyadan. waxaana xafiiska dacwad soo oogista ee magaalada Ismaaciiliya uu helay xogta ninkan oo la sheegay in lagu magacaabo Yusuf Hani Helmi oo loo yaqaano Joy Hani. ninkan ayay xeerlalinta ku soo eedeysay xaqiraadda diinta islaamka isla markaasna uu ku xadgudbay qiimaha hooyanimada. waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee magaalada Ismaaciiliya ay xireen ninkan iyo xaaskiisa iyadoona la filayo in maxkamad la soo taago dhowaan. si kastaba dunidan guudkeeda aan ku noolnahay ayaa waxyaabaha qiimaha leh ee qof walba ku weyn ay qiimaha ay leedahay hooyada oo wax loo dhigay aysan jirin iyadoona diinteena islaamka ay martabada u sareysa geysay xaqa ay leedahay hooyada. waxaana sidaas oo kale suugaan murtiyeedka Soomaalida iftiimiyeen qiimaha hooyadu ay leedahay waana halka uu ka lahaa abwaan Maxamed Ibraahim Hadraawi hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashiyo habeen kama baxdeeno iftiin lama heleeno dadka uma hayaameen. hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashiyo habeen kama baxdeeno iftiin lama heleeno dadku ma hayaameen xiga joogo. cabdi fataax macalin nuur Somali Cable muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank